kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka Xareed Media waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga mudiirka oo habeenada Isniinta iyo Khamiista soo galayaan aad ka daawataan janalka Xareed Media daawadayaal waa habeenimo Isniin ay soo galayso taariikhduna ay ku beegan tahay 9 bisha 2 ee Febraayo sanadan 2020 qodobada ugu muhiimsan ee aad ku daawan doontaan barnaamijka bandhiga mudiirka waxaa kamid ah canug yar oo 7 jir ah oo badbaadisay nolosha hooyadeed oo khatar ku jirtay muuqaal ay YouTube-keeda ka daawatay ayaa caawiyay qaabkee ay u badbaadisay waa daawan doontaan qodobkaas oo dhameystiran sidoo kale waxaa daawan doontaan sanbabka si layaab leh ayuu uga reestaa cabidda sigaarka warbixintaasna waynu eegi doonaa daawadayaal sidoo kale waxaynu idin haynaa wadno xanuun ayaa ku soo booday markii uu arkay canugiisa oo ku dhex jira qasaalada dharka xagee ka dhacday sheekadaasi barnaamijka bandhiga mudiirka ayaa kaga bogo doonta sidoo kale daawadayaal waxaan idin haynaa caawa waxa uu isku tuuray ceel moolkiisu yahay 50 feet si uu u badbaadiyo masweyn oo ceelku ku dhacay intaasi daawadayaal waa qodobada aan ku qaadaa dhigi doona barnaamijkeena fadlan daawada haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir asxaabta nala jaan qaado oo subscribe saar channelka gambaleelkana furo muuqaalkana like saar lana wadaag asxaabtaada si aan u ogaano qodobka ku xiisa geliyay fadlan faalo inooga reeb waata daawadayaal markaana barnaamijkeena ayaynu gudagalaynaa canug yar oo 7 jir ah ayaa badbaadisay nolosha hooyadeed oo khatar ku jirtay muuqaal ay YouTube-keeda ka daawatay ayaa caawiyay gabar yar oo 7 jir ah ayaa badbaadisay nolosha hooyadeed oo khatar ku jirtay kadib markii ay u fidisay gurmad degdeg ah cardiopulmonary resuscitation oo ay neef ku siisay hooyadeed markii ay aragtay inay mir daboolantay sida gurmadkan loo fidin karo waxay ka baratay muuqaal ay ka daawatay barta YouTube-ka gabadhan yar ayaa markii hore koob biyo ah hooyadeeda wajiga kaga shubtay si ay u baraarujiso markii ay aragtay inaanay wax dareen ah lahayn ayay ogaatay in xaaladeedu ay khatar tahay markaas ayay la xiriirtay waaxda gurmadka degdega ah Jessica waxay hooyadeedu u fidisay gurmad si ay wadnaheeda uga shaqaysiiso waxayna ku dadaalaysay inay nafsiisa ilaa ay ka soo gaarayeen waxda gurmadka degdega ah dhaqaatiirta isbitaalkii hooyada la geeyay ee Bristol ayaa sheegay in iskudayadii gabadhan yari ay sameysay ay keentay in hooyadeed oo xaalad khatar ah ku jirtay nolosheeda la badbaadiyo Jessica bilad geesinimo ayay ka heshay waxda gurmadka degdega ah waxayna sheegtay inay doonayso inay mustaqbalka noqoto dhakhtarad guuleysata waa sida ay sheegtay jariidada Mirror Online ee dalka Ingiriiska ka soo baxda anugtan yari ee 7 sano jirka ah hooyadeeda ayaa wadnaha istaagay kadibna neef ayaa siisay ilaa ay dhaqaatiirta gurmadka degdega ay kaga yimaadeen kadibna isbitaalka marka la geeyay hooyadii gurmad degdega loo fidiyay nolosheeda waa la badbaadiyay bilad ayaa lagu siiyay ka qayb qaadatay in ay nolosha hooyada la badbaadiyo inay door weyn ku lahaato wili barnaamijka daawanaysaan waa bandhiga mudiirka janalka Xareed Media waad ka daawanaysaan daawadayaal qodobkeena xigana waxa uu noqonayaa sanbabka si layaab leh ayuu uga reestaa cabidda sigaarka sanbabka aadanaha wuxuu leeyahay awood mucjiso ah oo uu uga soo caafimaado cudurrada uu ka qaado sigaarka balse waa in marka hore qofka uu joojiyo sida ay saynisyahanada sheegayaan dhaawacyada sababa kansarka waxaa markii hore loo arkay mid joogto ah oo aan bogsan ayna sii jiraan xitaa marka uu qofka joojiyo sigaarka arintan la yaabka leh waxaa lagu qoray wargeyska ka hadla arrimaha dabiiciga ah kaas oo lagu muujiyay dhowr unug oo ka baxsanaya dhaawacyada oo daawo u noqon kara in sanbabka uu bogsado isbedelka waxaa lagu arkay dad maalintii cabi jiray hal baako oo sigaar ah muddo 40 sano ah haddana caafimaaday kadib markii ay joojiyeen 40 sano
sigaar la cabay marka kadib markii sigaarka iska joojiya dadkaasi waxaa la soo ogaaday in uu sanbabkooda uu caafimaaday. kumanaanka kiimiko ee ku jira tubaakada la dhuuqa waxay waxyeeleynayaan ayna bedelaan hidrosidaha ku jira unugyada sanbabka waxayna si aayar ah isugu bedelaan kansar. cilmi baarista cusub waxay muujinaysaa in isbedel weyn oo dhacayo kadib marka qofka uu joojiyo sigaar cabidda xitaa haddii kansar uu ku dhaco. unugyada aadka u badan ee laga soo qaada dhuunta dadka sigaarka caba waxaa ka muuqday in tubaakada ay si ba'an u waxyeelaysay iyadoo ilaa 10,000 oo unug ay isbedeleen asal ahaan. kuwan waxay u eg yihiin waxyaabo qarax yar sameeyey waxayna sugayaan saamaynta xigta ee kansar noqon karta ayay tiri Dr. Kate Gwadis oo ka mid ah cilmi-baarayaasha jaamacadda UCL. laakiin unugyo yar ayaa ka badbaada oo aan isbedelin sida saxda ah ee ay ugu badbaadeen dhibaatada ka dhalatay sigaarka macadda balse cilmi-baarayaasha waxay sheegayaan in ay u muuqato in ay ku dhex nool yihiin meel xiran oo aan la geli karin. si kastaba marka qofka uu iska joojiyo sigaarka unugyada badbaaday ayaa bilaaba in ay kobcaan kadibna ay bedelaan kuwa xanuunsaday ee sanbabka ku jira. dadka iska daaya sigaarka ilaa 40% unugyadooda waxa ay u ekaanayaan dadka kale ee aanan weligood sigaarka cabin. annaga gebi ahaanba diyaar uma ahayn natiijada aan helnay. Dr. Peter Campbell oo ka tirsan macadka Sanger ayaa sidaa u sheegay BBC News. wuxuu intaa ku daray waxaa jiro kooxo unugyo ah oo isu bahaysta daweynta neefmareenka iyo dhuunta oo dhan. mid ka mid ah arrimaha cajiibka ah ee aan aragnay waxaa lagu arkay bukaanada sigaarka joojiyay xitaa 40 sano haddii ay cabayeen. waxay leeyihiin kumanaan unug oo aanba isbedelin oo aan la kulmin sigaarka. sidoo kale waxaynu eegaynaa daawada ku dhiirashada joojinta sigaarka. waa qodob muhiim ah ku dhiirashada joojinta sigaarka. qofku waa inuu ku dhiirada inuu iska joojiyo balwadda sigaar cabista. cilmi baariyaasha wali waxay qiimeynayaan ilaa heerka uu sanbabka bogsado. baaritaanka waxaa diran lagu saaray dhuunta halka laga eegi lahaa marinada yaryar ee loo garanayo alveoli halkaas oo hawada ay soo marto markaan neefsanayno waxayna ka soo qaadaa sanbabada. tusaale ahaan ilaa 47,000 oo qof oo ku nool UK ayaa qaba kansarka sanbabada ilaa rubac ka mid ah waxay ka qaadeen sigaarka. cilmi baaris ay horay u muujisay in ay yarayso halista kansarka sanbabka haddii qofka uu iska daayo cabidda sigaarka. fikradda waxay ahayd intaas ay fududahay sababtoo ah isbedelka unugyada sanbabka ayaa halkaas ku dhammaanaya. Dr. Russell Orit oo ka tirsan xarunta cilmi baarista kansarka ee UK waxay tiri waa fikrad dhiirigelin leh in dadka joojiyay sigaarka ay fursado badan oo cudurro ay kaga badbaadaan helayaan iyagoo ay ka yaraanayso dhibaatada ka dhalata tubaakada sanbabada ay u geysato. sidoo kale waxay fursad u tahay in sanbabka uu isu dheelitiro unugyada xanuunsan iyo kuwa caafimaadka qaba. wili waxaad daawanaysaan channelka Xareed Media barnaamijka bandhiga mudiirkada waad daawanaysaan daawadayaal. qodobkeena xiga kale waxa uu noqonayaa wadna xanuun ayaa ku soo booday markii uu arkay canugiisa oo ku dhex jira qasaalada dharka. ma rumaysan kartid argagaxa uu aabahani dareemay markii uu wajiga canugiisa yar oo soo eegaya uu ku arkay gudaha qasaalada dharka. waa xaalada qabsatay shakhsi ka mid ah dadka barta Twitter-ka isticmaala dhowr isbuuc ka hor. laakiin nasiib wanaag waxa uu arkayay wiilkiis yar ma ahayn ee waxa uu ahaa funaanad uu ku sawirnaa oo si gaar ah loogu soo sameeyay. aabahan dhibaatadaana qabsatay sawirka wiilkiis oo funaanad ku sawiran oo qasaalo lagu dhaqaayo arkay wuxuu moodayba in uu wiilka dhalay dhan uu qasaalada ku jiro. wuu naxay marka kadib oo gadaal ka ogaaday in uusan wiilkiisa ahayn oo funaanad si gaar ah loogu soo sameeyay sawirkiisa ku sawiran inay tahay. aabahan ayaa soo qoray sawirka oo baraha bulshada soo dhigay qoraal uu ku sheegayo in isbitaalka loo qaaday kadib markii uu wadna xanuun ku soo booday qaadan waagii uu kala kulmay dhacdada awgeed. waalidiinta ayuu ugu digay inay la kulmi karaan dhacdo tan la mid ah. waxa uuna yiri waxaan idinka codsanayaa haddii aad maraysaan dhar ilmihiina uu ku sawiran yahay
digniin duldhiga qasaalada ama shay kale oo lagu garto si aan loogu khaldamin. waa tahay daawadayaal, markaana waxaynu eegaynaa qodobkeena ugu dambeeya ee barnaamijkeena. qodobkan aad u xiisaysna, qodob aad u cajib geliya daawadaashana ayaynu caawa u soo bandhigaynaa. ruuxiina daawada asigaa ka dhargi doona hadduu eeb weyna ogolaado. qodobkan waxaa la leeyahay waxa uu isku tuuray ceel moolkiisu yahay 50 feet si uu u badbaadiyo mas weyn oo ceel ku dhacay. qof dhan naftiisu wuxuu u horay inuu ceel isku tuuro si maska ceelku ku dhacay inuu soo badbaadiyo. bal aan idinkaga dhaxbaxo warbixintan. muuqaal aad looga daawaday baraha bulshada ayaa wiil dhalinyaro ah oo dalka India u dhashay uu isku tuuray ceel moolkiisu yahay 50 feet si uu u badbaadiyo mas weyn oo ceelka ku dhacay. wiilkan dhalinyarada ah ayaa waxa uu ku guuleystay inuu badbaadiyo maska, laakiin waxa uu garab weydiistay asxaabtiisa oo xariga u soo tuuray si uu ceelka uga soo baxo. ceelkii ayay ka soo saareen iyadoo uu maskii dhexdiisa ku duuban yahay. markii hore wiilka dhalinyarada ah waxaa ku adkaatay inuu ceelka ka soo baxo. xariga ayaa u siibtay oo ceelka ayuu dib ugu dhacay. marka koowaad uu soo bixi rabay, xarigiyaa la go'ay, ceelku dib uu laabtay. laakiin maska marna ma aanu sii dayn, waxa uu sugay inta asxaabtiisu ay mar labaad xariga ugu soo tuurayaan si uu ceelka uga soo baxo. muuqaalka ayaa laga arkayaa wiilka dhalinyarada ah oo ceelka isku sii tuuraya si uu maska u badbaadiyo. marka uu ceelka moolkiisa gaaro ayaa waxaa u suurtagelaysa inuu maska qabto, kaas oo dhankiisa isku duuduubay markii uu ninka arkay. waa sida ay qortay jariidada New York Post. ugu dambeyn markii ay u suurta gashay inuu dibadda u soo baxo ayuu maskii duurka ku sii daayay si uu noloshiisa u sii wato. runtii gabagabadii barnaamijka bandhiga mudiirka ayaynu isla soo gaarnay daawadayaal. guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa barnaamijkii aad kala socoteen Xareed Media. intaan ku kulmi doona barnaamijkan kiisa xiga waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.